Saddexdii Diseembar 2009 4 Oktoobar 2011 14 Oktoobar 2017 waa maalmo qalbi taabad leh. Waa maalmo aan ka go'ayn xusuusta ummadda Soomaaliyeed. Waa maalmo aan weyna dhaqaatiirtii maanta iyo mustaqbalkaba dadka dabiibi lahayd. Waa maalmo aan weynay injineeradii maanta iyo mustaqbalkaba dalka dhisi lahayd. Waa maalmo aan weynay beeraleydii iyo ardaydii mustaqbalka dadkan waxay quuda lahaayeen soo saari lahayd. Waa maalmo aan weyna wax walba. Waa maalmo ay naga damayn dhammaan xidigihii ku yaalay cirka. Maalmaha iyo maalmo ka badanba waa maalmo ay ugu talagaleen ururka argagixisada ee Al-Shabaab inay ummadda Soomaaliyeed dukum iyo daakum hal xabana aysan ka soo reebin ay ka yeelaan. Sida ku suntan diinteena Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee toosan, go'aanada waaweyn iyo talooyinka masiiriga ah waxaa loo daba fadhiisan jiray kuwa ay diintu ku tilmaamtay al-culamaa warathatul anbiyaa. Balse wax walba waxay isbedeleen markay soo baxeen qowm ku qaatay axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo qur-aankii kariimka ahaa jeebkooda. Markay rabaanna waxay ku daraan, markay rabaanna way ka jaraan, sida Kirishtaanka iyo Yahuudi oo waxa ay dooneen ka gooya Baybaladooda. Waa acdaa'ul Islaam. Waa kuwa ugu ayaanka daran ummadda Nabi Muhammad calayhi salaatu wassalaam, al-Khawaarij sida Al-Shabaab iyo Daacish iyo gurubyada la halmaala. Waxay wataan culamaa isku sheeg axbaariyiin ah oo qofkii hadalkooda adeeca waxay u qoraan ama ay ku daraan listiga dadka laga doonayo jannada. Qofkii hadalkooda ka soo horjeesto adeeci waaya waxa ay doonayaanna waxa ay ku daraan listiga dadka laga doonayo naarta jahannam, acaadana Allahu minha. Waxaaba moodaa inay iyagu yihiin malaa'ig loo igmaday inay diinta waardiye ka qabtaan cidda ay doonayaan Ilaahayna raalli ka yahay inay soo galo iyagu soo geliya, cidda uu alla doonayna la dhahay ka saaro oo aysan soo gelin diinta Islaamka. Xasbiya Allah wa ni'mal wakiil. Bal muxuu ka yiraahdeen culimada Soomaaliyeed qaar ka mid ah. Bal waa kana ila dhageysta Sheekh Maxamed Cabdi Umul. soo ceeb weyn ma adigoo muslim ah dadkaagii layntooda in aad ku faraxdo oo sheegato oo aad nasri iyo guul ka soo qaado, gaalkuna yiraahdo waan ka xunnahay dadka meesha ku baaba'ay. soo ceeb weyn ma soo fadeexa ma aha, waase ninkii garanayo dareemayo waa inuu gaalku muujisto inuu dadkaaga u naxayo, adigana aad idaacadaha ka tiraado gaalaan baabiyey murtadiin baan baabiyey ood ummadii ku tumato. ilaahay baan idinku dhaariyay suura noocee bay u taala. masaasaa jihaada, mataasaa gaala la dagaalana, mataasaa wadan xoreyn ah, mataasaa muxuu ahay khayr iyo wanaag iyo guul lagu doonaya. abadan abadan suura qabiixa way. waxaad ka dhaxli doontaan aayaadka ilaahay ku been amoonaysa. yaa waxaas idinka cafiyahay, yaa waxaa idinka cafiyahay, yaa waxaas ula tegi doontaan, yaa ugu sheekayn doontaa waxaasan islaam ugu gargaarayn. haddaan islaam ugu gargaaraysan dadkiisi waa kuwa leh maxay ku waayeen gargaarka? xageedsa ku aragteen islaam iyo dadka hadsan islaamka dadkii xambaarsanaa haddii ay u diideen la siino aawa islaamka keligiisa dhameeye oo mustaqbalka qof aan ku jirleeye. midiin tirsan tahay waxa ka dhalanaya jamaacaadkan adcadisheen
مساجد اللي تكون جماعة اللي واي جمعة الإمام واي شعائر الإسلام كان وداوع المسلمين مجاهدين هذا مجاهد روح جهاد ما مساجد وجبيها ما ضد مساكين هولايا ما ضد أبريدها أو بري مجيدها إيو دلا أيدين كلفت الكينا ما كجوابي كرا مركا مدلو روح مسلمة مساجد ما بعشو horta bidaaqada ah qofkii dawladuhu waa gaal ama qofkii askarigu waa gaal oo qofku waraaqda gaalnimada isagu u jara waa manhaj khatiir ah oo Soomaaliya ku cusub oo muddo dhexe yimid oo dadka muslimiinta in la takfiiriyo ku saleysan manhajkaas marka ma ahan manhaj ka turjumaya sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo kitaabkii quraanka laba arrimood oo xambaarsan yahay khatar ah marka koobaad qofkan wuxuu gaalaynaa dad muslimiina aragtidiisa inay ka hor yimaadeen darteed isagoon wax daliil u haynin waa manhajkii khawaarijtu markoodii koobaad ay soo baxayeen ay xambaarsanaayeen oo la xukma illa lillahi keeneen manhajkii xambaarsanaayeen wuxuu ahaa inay muslimiinta takfiiriyaan wixii aragtidooda ka soo horjeeda qofkuna hadduu qof muslima gaaleeyo sida xadiiska saxiixa uu tilmaama ama qof muslima uu ku tilmaamay inuu yahay cadow ilaahay inuu yahay asaga unbay gaalnimadu ku soo laabanaysa gaalnimadu meelaan dhimayso asaga ayaa u dhow nabiga la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam marka qofka raamiga oo qofkan dariskiisa gaalnimada ku ganay qofkan la waa gaal miya gaalnimada u dhow mise midka la yiri gaal tahay arraami nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa u dhow midka gaalnimada asagu dadka ku gana xaggaas haddaan kaga gudubno culummada Soomaaliyeed bal xaggaana ila dhageysta baaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waa meel dhaxo oo la istaagaahin maanta Soomaaliya kuma taalo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraya tahay dadka Soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogteen walaalayaal kaca dabaab qora qaado kula dirir dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal walaalka Soomaaliyeed oo muslimka ah oo shabaab kalkaal ha noqonin cadow hal waa shabaab diirano ilaahay idankiis waa ka adkaanaynaa waana ka adagnahay waa ka tiro badannahay waa ka xoog badannahay waa ka xoolo badannahay waa ka adkaanaynaa shabaab inaan ka adkaanayna ilaahay idankiis la iskuma hayo